السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شخص سعد حرجينا في عنت هاي ما أنت سؤال بنكويديني السؤال شاسو مركا لجوجل أن يرد حق الدعوة ده وما حد يشهد كوين ذو قبنيسين لقى صوب بلعبة لابد يكون واجا أنا كمان أنشرين شيل كهرة يا شيل كهذا الشوجبة وشهدوين كم وقبنيسين محي أهيد ما شاء الله ان وحوي هذا سؤال هذا كجواب adeero ان laba kun iyo kowdii oo kaliya maanaan bilaabin barnaamijyada dhalinyarada iyo dhiirigelintooda anigu barnaamijyadan waxaan bilaabay 1991kii anigu waxaan ka imid xamar 1991kii ardaydii wax ka baranaysay baan ahaa 1991kii waxaan u imid wadankaba inaan dhalinyarada aan dhiirigeliyo oo aan dhalinyarada reer Hargeysa iyo reer Soomaaliya aan markaa garab siiyo ay ahayd alxamdulillah ilaahayna hawshaasi waa igu guuleeyay processyo badan baan la soo marnay hawlo badan baan la soo maray ilaahay maanta waa igu guuleeyay alxamdulillah rabbil caalamiin marka adeer 2001dii waxaanu bilownay ardayda dugsiyadaanu ka bilownay dacwadii dugsiyada laakiin 1991kii waxaanu ka soo bilownay private baanu u furnay la yiraahdo Puntland Institute of Languages and Islamic Studies oo aanu daasad caanaboori ka dhamaaday jaajuur dhagax iyo sees aanu maaragtay u dhignay marka insha Allah bal mar baan ka warrami doonaa qodobada noocaasa laakiin ardaydii seeska ku soo dhiganaysay ee aanu seeska iyo daasada caanaboora ugu soo dhignay adeer waxa ka mid ahaa wasiirka madaxtooyada Khadar wasiirkii hore ee dalxiiska Khadar Xaaji aadan xaaji cali gudoomiyaha maxkamadda sare Soltelco maxamed amiin maarkii gabiley marka mar baan ka sheekeyn doonaa bal processkan u soo marnay ka alxamdulillah marka waxa weeyaan adeer dhalinyarada juhdi badan baan soo gelinay alxamdulillah rabbil caalamiin 2001dii laakiin waxaan bilownay barnaamijka dacwadeed ee aanu dugsiyada ka bilownay waxaan isku xidhnay xilliga 2001dii afartii dugsi sare ee kaliya ee magaalada Hargeysa ku yaalay baan adeer isku xidhnay xilligaas marka waxaan u qabanay muxaadaraad iyo barnaamijyo baraarujina culimada anagoo ku xidhayna dhalinyarada waxaanu ka bilownay markii ugu horeysay lajnatu tawciya wal irshaad lidalaba ayaanu magacaasaan ku hawlgalnay 2001dii shantii bishii 11aad 2001dii bay ahayd marka waxaanu muxaadaradii ugu horeysay aanu ugu yeedhnay ardayda Sheekh Mustafa waxaanu ka hadlay akhlaaqda ardayga muslimka ah maadaama doonayna ardayda dhisno akhlaaqda ardayga muslimka ah baanu uga dhignay ciwaan markii dambana waxaan u sameynay nadwa cilmiya waxaanu ka bilownay waata muxaadarada aan sheekha u xiriirinayo duulaanka maskaxda غزو الفكر في جانب التعليم ayaanu sheekha ka hadal marka bal manaahijta uu ku bilaabay sheekhu aynu in yar wada dhageysano oo aynu ka wada faa'iideysano ma jeclin runtii muxaadaraadka aan culimadii ardayda isku xidhayno in loo dhageysto muxaadara ahaan in loo dhageysto laakiin waxaanu jecel lahay in laga faa'iideysto ficil ahaanna loo faa'iideysto marka YouTube-kayada ayaanu soo dhigaynaa TikTok-gana iyadoo kooban baanu soo dhigaynaa laakiin iyadoo ballaaran waxaanu soo dhigi doonaa YouTube-kayada mu'asasatu tawciya al-islaamiya maanta ay taariikhdu islaamku ay tahay 30kii Shawaal oo u dhiganta 3 January 2003 ujeedada aan isugu nimid maanta waxa weeyaan ardaydu maadaama ay galeen fasalkii ay galeen si ay uga faa'iideystaan culumada ayaa waxaa loo soo diyaariyey ندوة علميات ندوة أورنتي كسرطان دولان كمسكحة عامة رسول الفكر حاليا سجاري فضيلة الشيخ محمد الشيخ عمر الدين يا شيخ مصطفى حاج إسماعيل هارون في دورتين الماضي وحان وحي الله يكرسيه كورطونا موضوع القصة في الإسلام الغزو الفكر في جانب التعليم أما وموضوع معني في أي ورقة
هي مجتمعات مسلمة ويكون هي الجزيرة الغربية قارهان بعض خصوصا تعليم تطوين تطلق أديان أبوان فضل الحين تعليم زي منهج في سياقات الرجل waxay u qaataan tacliimtu inay isku mid untay yani iskuulku inuu iskuul u yahay xisado go-aan in la dhigto dabeetana xisaska haddii lagu dhigo oo ka kooban yani waxyaabahan la dhiga luqa carbeed ingiriisi physics chemistry mathematics inaha haddii la qaato inuu tacliimtu isku mid yahay laakiin waa masale aada u baciida bini aadamka meel laga gumaysto caqliga ugu daran qofka bini aadamka haddaad xoog ku gumaysato oo jir ahaan aad u gumaysato waqtinbuu kula sugaya uu isna fursadda helo iska kaa dhiciyo laakiin haddaad caqli ahaan u gumaysato taabic buu kuu noqonaya qofku daba socda isagaa can tawcin kuu daba soconaya isagoo ku aqbalsan ayuu ku daba taagnaanaya manaahijta tacliimiga ahi waxaa loo qoondeeyaa inay soo saarto ummad kasta qofkii ay mustaqbalka rajaynaysay inuu soo baxo walidaalika muwaasafaadka ama waxyaabaha ay leedahay manhajka tacliimiga ahi wuu kala gedisan yahay maalan manhaj kasta oo tacliimiya wuxuu ku salaysan yahay usuul caqiide ah usuusha caqadiga ee mujtamacaasi ama bulshadaas ay rumaysan tahay ayaa bays u ah ama sal u ah tacliimta ay dhigayaan tusaale ahaan ummad waliba waxay raadinaysaa inay soo saarto almathal alacla ama muthulkii dadkii lagu dayan lahaa iyo mujtamacii ay u arkaysay mustaqbalkeeda inuu yahay mujtamaca fiican laakiin su-aasha isweydiinta le waxa weeyaan qofka fiican dunidu isku si ma u tafsiirtaa maxaa qofka fiican waa kuma